السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعيقو ومهد سياد عبدي تمنى دور السان وسومان ميديا مركو لك سودو على أصحابتي شفت مدن سودو على تلك الكوري سبسكري سارة شدي منك بالك برو واجو سبسكريكو ونون الرجل مركا أنا وبورتا داندي انتين انت كان كشقين نوان تي أنا نوان كوسك أنا ولد واحد سورنا واحد نجينا سدي الرجال ويان markaa subscribe way muhiim markaa maanta waxaan ka hadlaynaa sida WhatsApp-ka lagu sameeyo jawaab celin ama jawaab soo noqosho soo taqaan mar assalaamu calaykum qof wato tiimka WhatsApp-ka mid kaliya baa midkoon ay ku tusaya imika qof baan ku tusaya bale qof soo codsan tusaya qofkan uu soo codsado qofku soo codsaday wuxuu ku leeyahay salaam wax ku leeyahay assalaamu calaykum walaalo qaali waaxad وعليكم السلام waa maxasantahay sharafta la soo xiriir soo dhawo walaalo waad maxasantahay marka waa marka WhatsApp ma aha WhatsApp caadiga waa WhatsApp business weeyaan hada baa WhatsApp ku jirin WhatsApp waxa uu qoraysaa WhatsApp business sota lacagta ana ma furnin lacagta ma furnin زي isku dhufo kama walaalo kama aha ka anigu ma jiro anu kaan iska deeka laakiin ka san isticmaalaa way ugu jiraan aniga adigu soo la soo deg hadan ku jiro open da walaalo anu ugu jira open ma oranaya anu open ma oranaya ugu jira saamar ku soo baxo walaalo waxaad ku dhufanaysaa saddexda dhibcood ee u koreeya ku dhufanaysaa taxawin ku fultay inesta baanaysa marka soo taabatay waxaan business tools baanaysa saasan taabanaysa ana saamar ku soo wadid waatan bartaas ku dhufanaysaa wata anigu qorantay markaad doonaysan ku qortid taas ku dhufanaysaa markaas ku soo baxay adiga taas ku soo baxaya taant soo gudshid ayaa ku dhufanaysaa ay ku qoraysaa magacii laakiin ku qoran marka aan taabanaya safe baan onay marka safe onaysa mid ninkiina linkiina wuu jirtaa linkiina waa tan marka linki lagu soo diro linkiga waa tan marka waxa linkiga lagu soo diro taana waa saa marka linkiga waa saa in dhowr qaybood uu leeyahay qayb kale oo tan marka anigu waxaan doonaynaa waa taa kaasuna ka agida garta message-kaas kaasida marka عشان subscribe channel Sara marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh